meeshan waa meeshii uu ku dhaawacmay dhaawac halis uu ku soo gaaray walaalkii Axmed Xabiibi oo hadda mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho xaaladiisa caafimaad ugu dabiibayo waxaan rajaynaynaa inuu ka soo kabsado hadduu Ilaahay yiraahdo halkaas waxaa xalay dhibaato loo geystay walaalkiis gabeen oo ah midka u soo dhicinay qotolyoonka guriga caruuroo ka tagay xaasuu ka tagay hooyo ka tagay asigana halkaas lagu dilay midkan wuxuu ka imaaday guriga xaaskiisa uu socday waa la dhaawacay midka xagga lagu dilayna wuxuu ka imaaday guri kale oo asiga u jiray guriga hooyadiisa uu socday si xalay hooyadiisa iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa oo ugu seexdo alxamdulillah ma aysan dhicin qadar rabbi soo gashay kuwa xush gacantooda ay haleysatay Axmed waxa xabadda ay kaga dhacday madaxa waxay kaga soo baxday inta xaaladiisana waa mid aad u daran insha Allah teeniitiisa jin waa insha Allah waxa rajaynaynaa inuu walaalkeena noo soo caafimaado midka kalena hal xabada ku dhacday calooshay kaga dhacday dushay kaga baxday goobyaal uu ahay labadeedii garbood ay ahaayeen walaalayga ay ahaayeen mid ka mid ah xalay video call aan ku sheekaysanay 6 saac waxa la soo sheegay inuu geeriyooday qadar rabbi ku dhacday haddii arrintan saan ay u sii socoto walaalayga kale ummadda Soomaaliyeed iyagana way ku soo socotaa geeridu haddii adiga ay ka maqan tahay walaalka ay ku maqan tahay haddii adiga ku soo maqan tahayna bari qof kale ay aadaysaa anigu ma jecelni inaan maalin kasto aan dhaano xaqa u baahanay xaqa rabnaa inaan dhaano oo wax xaq aanan helin taas waxa uu aragnaa in anagu waddanka Soomaaliya gumeys aan ku joogno